wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa ka hadlay arrimo badan kuwaas oo ku saabsan caabuqa COVID-19 waxaana wasiirku sheegay inay dalka keeneen mashiin lagu baadho cudurka coronavirus sidoo kale wasiirku waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay wasiirka caafimaadka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaraddaasi waxa kale oo xukuumaddu soo iibisay waxay kale oo xukuumaddu heshay soo iibisay maaha ay xukuumaddu heshay oo keentay mishiinkii lagu baari lahaa coronavirus oo aynu kaga nasanayno dadkii aynu u dilaynay wadamada fogfog sida Kenya iyo South Africa sidoo kale waxaan dadaal xoogan u galay sidii aanu kaalmo dhinaca agabka ah uga helayn adduunka iyo ururada caalamiga ilaahay hadda hay'ado dhowra iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka soo jawaabtay oo keenay waxyaalo aad u fiican waxyaalo kale oo fara badan oo lagu guda jiraa in degdeg loo keeno oo warkoodii baan ugu guda jiraa waanu filaynaa in dhaqso hadii Allah idmo loo helo sidoo kale waxa xukuumaddu bilowday inay iibsato dalagyada ka soo go'aya beeraha dalka waxa ku talagalku yahay inay guddiga ka hortagga iyo u diyaar garowga iyo ganacsatada dadku ka wada tashanaan xagga kaydka raashinka xukuumaddu waxay u yeedhay dhammaan dadka ehelka u ah maciishada daruuriga ah ee dalka iyadoo ugu talagashay inaan marnaba la waayin lana ogaado inta ku filan jamhuuriyadda Soomaaliland inta kalena loo isticmaalo marka lagala tashado cuntooyinka wixii ina dhaafi kara ee ay iibsan karaan marka la qiyaaso baahida sida daraadi ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto waxaan leenahay waa inaynu fahanaa inaynu dadkaanahay waxaan laba kalmadood odhanayaa dad Soomaalida kelmadda loo isticmaalaa ay noqonayso gabadha wasiiradda caafimaadka ee xamar joogta gabar ku tag dhaqankeena ma aha in gabdhaha lagu tiigaalo waxaan se oran lahaa inaad fahanto xogogaal badan haddaadan u ahayna aad wax ka ogaato haddii cidi sidaa kugu tirina aanay waxba ka jirin in ummadda reer Soomaaliland cid sheegan kartaa iyo cid xuquuqaheeda gaarka ah hadduu xanuunka qaabka loo maamulayo yahay iyo cidda laga helay oo waxaanu annagu maamulanay ee cid waxaanu u daba fadhino ma gabadhaana waxaan leeyahay intii ka waaweyneed bay saragna waxba kuu samayn maayaan qof baa Hargeysa laga helay iyo qof baa meel hebla laga helay horaynu u kala quusanay aynu qoomama lahan manihin dad cadow oo ummadda reer Soomaaliya neceb inay dhibka iyo baabaa iyo qaraxa iyo madaxda lagu ilaaliyo taangiyada inay ku jiraan ama ninka sheeganaya taytalka taangiga hoostiisa ku jira manihin in dad jecel inay ku jiraan dhibta iyo baabaa Maxamed alayhi salaatu wasalaam marka ugu horeysa sharaf bay inoo tahay inaynu maanta halkan isugu nimaadno innagoo ka odhan doona kelmado ku saabsan guud ahaan xanuunka coronavirus waxa maanta dunida jahwareer ku riday oo la ildaran tahay cudur cusub oo kuwa faafaa oo ay ugu yeedhaan coronavirus 19 kaasi oo si xawli ah oo la yaab leh isaga kala gudbaya muddo Cabdiraxmaan Yaasiin Abubakar British warbaahinta SBC Hargeysa